socdaalka Soomaaliland waxay ku wargelisay laamaha diyaaradaha maxalliga ee ka kala duula Muqdisho iyo Hargeysa in dhamaanba la joojiyay adeegii Go Home ee uu qofka Hargeysa ka tagaya xamar u goosan jiray bilaa baasaboor la'aan. dadka Muqdisho ka imanaya sidoo kale ay viisa u soo goosanayaan baasaboor Soomaaliland marka ay iman doonaan. arrintaasi waxa ka soo baxday taliyaha laanta socdaalka ayaa qoraalkaasi ku saxiixnaa diyaaradaha lagu ogeysiyay in aan la aqbali doonin ama aan qorshahaasi dib uga dhici doonin dhammaan madaarada Soomaaliland isla markaana laamaha kala duwan ee laanta socdaalka ee madaarada lagu wargeliyay in aanay qof baasaboor sidan oo fiisa aan goosan mooyaane qof kale aan u tagi karin dhammaan deegaanada ay ka taliso xukuumadda Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalkaasi. ayaa lagu ogeysiyay ilaa markaa shacabku waxa uu dhaqan galay xeerkaasi ama go'aanadaasi ay soo saartay iyadoo dad ka soo degay Muqdisho Go Home soo goostay laga celiyay shalay madaarka Hargeysa sida aan helayno wararka ilaa imika ay noo sheegayaan saraakiil ka tirsan madaarka international magaalada Hargeysa sidoo kale maanta dadka baxayay garoonka Cigaal International ee magaalada Hargeysa ayaa la soo celiyay kadib markii ay isku dayeen in warqadaasi ay ka goostaan isla markaana ay tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. marka go'aankani waxa uu joojiyay isku socodkii bilaa baasaboorka ama fiisa la'aanta la isku gudbayay deegaanada Soomaaliya. waxa go'aankani uu sidoo kale joojiyay in dadku ay isku socdaalaan bilaa baasaboorna ay ku safri karaan iyadoo Soomaaliland sheegtay in baasaboorkeeda lagu safri karo fiisa loo soo goosan karo marka Muqdisho la tagay sidoo kalena marka xamar laga imanaya ama deegaanada Soomaaliya loo soo goosanayo baasaboorkiisa isla markaana sidaas labada dal ama labada deegaan iskaga gudbi doono wixii ka dambeeyay 26 bisha. Ilyas waxaan ognahay in Soomaaliland safiiro halkan u joogin sidoo kale Muqdishona uusan xagga u joogin marka mas'uuliyiinta Soomaaliland ma faahfaahiyeen sida dadka shacabka ah ay ugu suurtagelayeen inay baasaboorada iyo fiisayaasha ay rabaan ay helaan. qoraalkaasi lagu wargeliyay shacabku hay'adaha diyaaradaha ee ka shaqeysta deegaanada Soomaalida dhexdeeda laguma sheegin waxa ay dadku sameynayaan balse waxa la sheegay in qof walba loo fiiseynayo tagitaanka xamar. marka la eego qofka ka soo jeeda deegaanada Soomaaliya ee magaalada Hargeysa ku sugan ayay sheegeen in loo ogol yahay inuu goosan karo Go marka uu tagayo dalkiisa hooyo sida ay qoraalkaasi ku sheegeen mas'uuliyiinta laanta socdaalka.